bismillaahi raxmaan raxiim. kulan wanaagsan. qodobada ugu muhiimsan wararka Soomaalida iyo caalamkana waxaa ka mid ah madaxweyne Farmaajo haddii 2 jeer hore uu ku guul daraystay waxa uu hadda mar kale hortaala arrin muhiim ugu noqon karta soo laabashadiisa xukunka. weliba shacabka iyo hoostaala balse madaxweynaha sida uu isku loogo ayay ku xiran tahay baa la leeyahay. James Swan oo xafiiskiisa ugu tagay safiirka Imaaraadka ee magaalada Muqdisho kulanka qarsoodiga ee dhacay xilli qaraxii dhawaan dhacay UAE dhabarka loo saaray inay soo abaabuleen. madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta nin ay saaxiib yihiin oo ku taliyay in Soomaaliya la tirtiro kacdoon ka dhashay iyo Soomaaliya oo aan weli ka dhiidhin warkaas qarannimada xadgudubka ku ah. banaanbax weyn oo Khamiista berri ah ka dhacay magaalada Muqdisho. dowladda federaalka ayaa soo qabanqaabisay waxaana looga soo horjeedaa baa la yidhi ururka Al-Shabaab. loolanka adag ee wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda ugu jiraan shakhsiyaad ay wataan in xilal loo magacaabo xarumo dan guud ah oo ku yaala magaalada Muqdisho ayaa buuq uu ka taagan yahay. arday gaar ah oo jaamacad dowladda ay maamusho iyagu dhigta ayaa lagu casuumay madaxtooyada Soomaaliya. wasiir Yuusuf Garaad ayaa hogaaminayay ardaydan iyo ujeedka ka dambeeyay u yeeritaankooda. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyana ku dhawaad 7 nin oo falal argagixisanimo lagu helay dembigooda ayay xukun ku riday. qodobka dibadda ugu muhiimsanna waxa uu yahay maleeshiyada kooxda Taliban oo diiday in wada hadal iyo wada xaajood aysan diyaar u noqon doonin weligeedna aysan nabad noqonayn dalka Afghanistan haddii ay sii joogaan ciidamada Mareykanka. u diyaar garooba qodobadaas oo faahfaahsan. taariikhdu waxay ku beegan tahay 1 bisha koowaad ee Janaayo 2020 waa subaxnimo Arbaca. warkii oo dhan. kulan qarsoodiya ayaa waxaa ku yeeshay magaalada Muqdisho safiirka Imaaraadka Carabta u jooga Soomaaliya Maxamed Axmed Cusmaan Xamaada iyo weliba wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan. danjire Swan ayaana xafiiskiisa ugu tagay danjiraha Imaaraadka u jooga magaalada Muqdisho Xamaada waxaana kulankoodaas wixii ka soo baxay lagu faahfaahiyey qoraal kooban oo la soo dhigay barta internetka ee safaaradda Imaaraadka Carabta Muqdisho ay ku leedahay. kulankaas labada dhinac waxa ay ku faahfaahiyeen waxyaabaha ay ka wada hadleen iyadoona ay ugu muhiimsaneed xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo midda amniga ee Soomaaliya. safiirka Imaaraadka Carabta oo toddobaadyadii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa dhawaan la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad waxaana la filayaa in maalmaha soo socda uu kulan la qaato madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Kheyre. dowladaha Soomaaliya iyo Imaaraadka ayaa xilligan xiriirkooda waxa uu u muuqdaa mid aad u sii xumaanaya iyadoo dowladda Soomaaliya ay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ku qabatay lacag dhan 10 milyan oo dollarka Mareykanka oo Imaaraadka ay soo dhiibeen sanadkii 2018. sidaasoo kale baarlamaanka Soomaaliya ayaa cod ay u qaadeen qodob ku saabsanaa in dalka laga saaro shirkadda DP World laga leeyahay ee Imaaraadka Carabta oo Soomaaliya ka caawin jirtay dhinaca tababarada ciidamada iyo dekedaha. marka la eego dowladda Imaaraadka Carabta ayaana waxa lagu eedeeyay maalmo ka hor qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho in iyada ay fududeysay inkastoo weli si rasmi ah ay dowladda Imaaraadka aysan u beenin ama war ay arrimahaasi kaga hadlayaan midna soo saarin. James Swan ayaana la ogeyn waxyaabaha sida gaarka ah uu kala hadlay safiirka Imaaraadka Carabta u jooga magaalada Muqdisho. qaybaha hore ayaa daawanaysan shabakadda wararka maanta. dowladda hoose ee Xamar ayaa ku dhawaaqday dibadbax ballaaran oo looga soo horjeedo ururka Al-Shabaab in maalinta berri uu ka dhici doono magaalada Muqdisho. waxaa maamulka gobolka Banaadir ay ku dhawaaqeen dibadbaxan in uu yahay mid shacabka Muqdisho ay ku muujin doonaan dareenkooda ku aadan xasuuqii ka dhacay isgoyska Ex-Control Afgooye ee magaalada Xamar 28 bishii hore 2019. dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay doonaysaa in ay kasbato shacabka Xamar ku dhaqan oo ay kaga faa'iideysato quwadooda si qad cagaaran oo qaraxyada iyo amni darrada kaga caagan magaalada Muqdisho looga dhigi lahaa. degmooyinka gobolka Banaadir ee 17 ah ayaa loo diray maamuladooda fariin ah in shacabka isugu yimaadaan banaanbaxaas 2 bisha oo berri ku aadan 2020 2 bisha Janaayo 2020 oo berri oo Khamiisa ku asteysan in ay isugu soo baxaan. Al-Shabaab ayaa habeen ka hor waxa ay sheegteen
in weerarkii dhiigga badan ku daatay iyagu ay ka dambeeyeen, kaas oo ku dhowaad 100 qof ay ku dhinteen qaraxaas isgoyska ex control afgooye ka dhacay, 200 dad ku dhowna ay ku dhaawacmeen. dhinaca kale, wararka laga helay madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in madaxweyne Farmaajo uu hadda haysto fursad weyn xukunkan uu ku soo laaban karo haddii uu sameeyo qorshahan loo soo bandhigay. xitaa mucaaradka ayaa dowladda waxay ka wajahaysaa siyaasiyiinta iyo xubnaha ka tirsan golaha baarlamaanka. hase ahaatee, balse haddii tallaabadan loo farmuuqay madaxweyne Farmaajo uu sameeyo, xitaa iyaga ayaa taageero u muujin doona baa la yidhi xubnaha mucaaradsan. hogaamiyaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 2 arrin oo hore oo dalka ka dhacay uu ku waayey taageero badan u lahaa. mid waxay ahayd dhiibitaankii Cabdilkariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo dowladda Itoobiya loo gacan geliyey, taas oo dad badan ay ka caroodeen. qaraxii Soobe ka dhacay 2017 Oktoobar waxay ahayd mid ka mid ah imtixaanadii ugu culusa ee dowladda Soomaaliya shacabka ay ka qaadeen. sida ay kaga jawaabtana rabitaanka shacabka looma mahdin. hadda waxaa u furan madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu sameeyo isbeddel xoog leh oo dhanka amniga, saraakiisha qaabilsan la sifeeyo, kuwa laba afleynta ah ee shaarka shabaabnimada iyo midka dowladda isku dul wata, shacabka xamar oo si dhab ah loo soo dumo, wadooyinka xiran oo loo furo, iyo awoodda dowladnimada oo gacanta laga saaro dadka magaalada degan Muqdisho caasimadda Soomaaliya. banaanbaxa Khamiista beri dhacaya waxay dowladda Soomaaliya haysataa fursad kale oo ay kaga shidaal qaadan karto shacabka iyo sida ay ugu soo banaanbaxaan dagaalka shabaab lala gelayo. qabiilka iyo qaranka oo la kala duwo waa tabta ugu muhiimsan ee awoodda shacabka lagu hanan karo, dowladnimadana ay ku hagaagi karto, loogana adkaan karo ururka Al-Shabaab ayaa la leeyahay. waana tallaabooyin muhiim u ah dowladda madaxweyne Farmaajo haddii sida loogu talagalay looguna farmuuqay ay dhab u qaadato. weli waxaad daawanaysaan wararka maanta. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun dil ah waxa ay ku riday qaar ka mid ah xubno lagu helay faldambiyeedyo argagixisanimo, qaarkoodna xabsi ayaa lagu xukumay muddo sanado ah. gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shuute ayaa dil ku xukumay 3 nin oo maxkamadda goobjoog ka ahaa, kuwaas oo lagu kala magacaabo Maxamed Xaaji Axmed Ilka Cadse, Saalim Saciid Maxamed oo Salmaan loo yaqaanay, iyo Axmed Maxamed Haashim oo Axmed Carab ku magac dheeraa. gudoomiye Shuute waxa uu sidoo kale xukun dil ah ku xukumay rag ka tirsan ururka Al-Shabaab oo maqanayaal ahaa, waxaana lagu kala magacaabaa Sharmaarka Cumar Axmed Ugaaska Geni ayaa sidoo kale loo kala yaqaanaa magacyada is-afgarashada. Axmed Faarax Iidle Shuuriye ama Madoobe ayaa loo yaqaanay, iyo Cabdiraxmaan Mustaf Sheekh Cabdullaahi Faarax Mooryaanka, iyo Ramadaan Cabdiraxiin Mursal oo Saalax ku magac dheera. Faadumo Xuseen Cali Cadaawe oo loo yaqaano Faadumo Korneyl ama Cosobo, magaceeda afgarashada ayay maxkamadda iyadana goobjoog maray ka ahayd lagu xukumay 15 sano oo xabsi ciidana. maxkamadda ayaa xukun xabsi daa'ina ku xukuntay nin la yiraahdo Cabdinaasir Axmed Cabdulqaadir oo Carabi loo yaqaano, kaas oo maqana ahaa isaguna. dhammaan xubnahan waxaa lagu helay inay mas'uul ka ahaayeen dilal qorshaysan oo loo geystay saraakiil ka tirsan militariga iyo booliiska Soomaaliya, iyo weliba dad shacab ahaa siyaabo kala duwan. xukunada ay riday maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa ku soo aadayay maalmo kadib qaraxii dadka badan ay ku leedeen ee ka dhacay isgoyska ex control afgooye ee magaalada Muqdisho oo markii dambe ururka Al-Shabaab ay mas'uuliyadiisa sheegteen. Kenya waxyaabo badan ayaa Soomaalidu ay horumar gaarsiisay dalkaas. ganacsiga ugu badan ee xaafadda Islii Soomaali ayaa 3 meelood 2 meel iskale. 10kii baabuur ee dhaqaaqa magaalada Nairobi 5 ka mid ah waxa iskale Soomaalida, waxaana taas oo ay jirto haddana dhaqaalo badan ay Soomaalida gelisay gudaha dalka Kenya. waxaa loogu abaalguday in la dhibaateeyo, raaf lagu sameeyo, dhac loo geysto mararka qaarkood, iyo weliba in aysan helin sida xuquuqda ganacsatada caalamka oo ay waddankaas maalgashiga ay ka sameeyeen lagu bahdilo mararka qaarkood. madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa bishii November ee sanadkii la soo dhaafay 2019 waxa uu heshiis la galay madaxweyne Farmaajo,
kaasoo heshiiska dhigayay dhinacyo kala duwanna ahaa xiriirka labada dowladood oo la wanaajiyo diblomaasiyadda oo dib loo soo celiyo iyo weliba isku gudubka dhinaca ganacsiga iyo weliba gaadiidka kala duwan oo ay diyaaradaha ku jiraan in aan lagu dhibin safarada dadka isaga kala gooshaya labada waddan. Kenya ayaa nin saaxiib la ah madaxweynaha Uhuru Kenyatta oo la yidhaahdo Professor Matua waxa uu ku baaqay in Soomaaliya gebi ahaanba la tirtiro, taas oo uu ku tilmaamay in nabadgelyada Soomaaliya ay ku xiran tahay in lagu kala biiriyo Soomaaliya wadamada deriska la ah. Ma uusan carabaabin wadamada uu isleeyahay ha lagu biiriyo Soomaaliya. Waa gef iyo qarannimada mid xadgudub ku ah hadalkaas. Madaxweynaha Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta kale ee dowladda midna kama aysan hadlin qoraalkaas uu soo dhigay barta Twitterka Professorkan madaxweynaha Kenya saaxiibka la ah, waxaana dad badan ay ka falceliyeen aadna uga xumaadeen warkaas, iyadoo xitaa dad Kenyana ay ku sheegeen hadalkaas inuu abuuri karo isku dhac dhex mara labada waddan haddii aan degdeg looga fiirsan. Dowladda Kenya ayaa ciidamo badan ay ka joogaan Soomaaliya, askarteeda ugu badanna waxay ka howlgalaan magaalada Kismaayo ee caasimadda Jubbaland iyo deegaano ka mida gobolka Gedo. Waxaana 2011 dhammaadkeedii ciidamada Kenyaanku ay soo galeen gudaha Soomaaliya xilligaas oo ay shabaab la dagaalamayeen. Kenya ayaana dhaqaalo badan ku hesha ciidanka ka jooga Soomaaliya, waxaana ay aad u barataartaa ama taageero dhow siisaa maamulka Axmed Madoobe hogaamiyo ee Jubbaland ka jira. qaybaha dambe ayaan isla soo gaarnay daawadayaal saaxiibayaal. madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxaa lagu casuumay arday dhigata kulliyadda saxaafadda iyo cilmiga warbaahinta jaamacadda ummadda Soomaaliyeed, waxaana socdaal cilmiyeed ay wax kaga ogaanayaan hannaanka shaqo ee xafiisyada ugu sarreeya dalka halkaas loogu sameeyey. ardaydan indhe-indheynta samaynaysay ayaa waxaa horkacayay Yuusuf Garaad Cumar oo bara u ah ardaydan islamarkaana hogaaminayey, waxaana ay la kulmeen agaasimaha xafiiska warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed, wuxuuna soo tusay kormeerna uu kula soo sameeyey ardayda xafiisyada kala duwan ee madaxtooyada dalka lagaga arrimiyo. agaasime Cabdinuur ayaa tilmaamay in ardaydan oo ah dufcadii ugu horreysay burburkii kadib ee culumta saxaafadda ka dhigata jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo ay aas-aaskeedu yihiin horumarka iyo kobaca aqooneed ee saxaafadda Soomaaliyeed, waxaana jaamacaddan gacanta ku haysa dowladda federaalka ee Soomaaliya. ardaydan kulliyadda saxaafadda iyo cilmiga warbaahinta jaamacadda ummadda Soomaaliyeed dhigta ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin safarkan ay ku tageen iyo kormeerka madaxtooyada dalka, dhiirigelinna ay u tahay in ay fahmaan hannaanka warbaahineed ay u shaqayso madaxtooyada Soomaaliya. qodobka dibadda intaanu aadin daawadayaal aan ka hormariyo. loolan adag ayaa waayahanba ka jiray oo xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalka ay ugu jireen shakhsiyaad ay doonayaan in loo magacaabo xarumo dan guud ah oo dayactir lagu sameeyey. goobaha tartanka loogu jiro ee la rabo in loo magacaabo mas-uuliyiin cusub waxaa ka mid ah tuulada cayaaraha ee Stadium Muqdisho oo dib u habeyn ballaaran lagu sameeyey sanadkan maanta bilowday, ayaana bilowgiisa lagu wadaa in la dahfuro. maktabadda qaranka iyo madxafka qaranka ayaa ka mid a meelaha ay loolanka wasiirada iyo xildhibaanada ugu jiraan shakhsiyaadkan ay u geysteen in loo magacaabo xilalka. xildhibaano badan qaarkood ay la kulmeen ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre si ay u helaan maamulka xafiisyadan muhiimka ah. dad badan ayaa aaminsan in ay ka faa'iidaysan doonaan haddii xafiisyadan ay shaqeeyaan, waxaana shaqo abuur u noqon doonaan boqolaal dhalinyaro ah haddii sida loogu talagalay looga faa'iidaysto. waxaana dowladda federaalka ee Soomaaliya dib u habeyn iyo bilic qurxoon ayaa dib ugu soo celisay meelaha ay ka mid tahay garoonka kubadda cagta ee Stadium Muqdisho oo qaybo kala duwan ka kooban, degmada Wardhiigleyna ku yaala, halkaas oo 10kii sano ee la soo dhaafay fariisin ciidan gacmo kala duwan isku bedelaysay, marna Amisom, marna shabaab, marna maxaakiimta islaamka. markana qodobka ugu dambeeya dhanka dibadda ayaan eegaynaa daawadayaal. wararka maanta ayaana daawanaysaan. kooxda canaasiirta ah ee daalibaaniyiintu waxa ay diideen oo wax wada xaajood ah aysan dhici karin, sida warkay u dhigeen xabad joojinna aysan dhaqan gelin karin inta ciidamada Maraykanka ay ku sugan yihiin gudaha dalka Afghanistan. warbaahinta Sky News ayaa warbixin lagu daabacay waxa laga soo xigtay xubno ka tirsan
kooxda daalibaan inay diidan yihiin kusii sugnaanshiyaha muddada 18 sano qiyaas ahaanta ay joogaan ciidamada Mareykanka gudaha Afghanistan. Mawlaafi Mansuur waa xubin ka tirsan maleeshiyada kooxda daalibaan wuxuu sheegay inaan marnaba la aqbali karin kusii nagaanshiyaha ciidamada Mareykanka wax wada xaajood ama xabad joojin ahna aysan dhaqan geli karin. guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa wararka Soomaalida iyo caalamka. inta aan wararkan oo kale dib isku arki doonno daawadayaal saaxiibayaal sidaas iyo sanad cusub oo wanaagsan.